Ismaalure qorraxdii kulka iyo iftiinka badnayd sidii caadada u ahayd ayay bari ka soo baxday. Ismaalure hadda ayuu hurdo ka soo kacay, salaadii subaxna food ma dhigin. Muxuu food dhigaa goor salaadii ugu dambaysayba isagaa garanaya. Malaha sanad ma tukan haddaanay ka badnaynba. Isagu waxa ma qoro in ay tahay waajib lagu leeyahayba ma oga. Hadda ayuu qoracanayaa. Markuu dhergana iskuulkii islaanta iyo odaygan habaarka qaba kula waasheen ayuu aadayaa. Niyad uma hayee kursiga u dambeeya ayuu iska fadhiisanayaa. Cashar qori maayo, macallinkana hadalkiisa ayaa dhibaya. Duhurkii marka la soo daayo, qadadii ayaa guriga ku sugaysa oo uu jihaad halisa la gelaya. Markuu meel kaga soo hadhana hurdo ayuu dug dhahayaa. Casarkii ayuu soo kacayaa oo intuu kaba xun qaato sidii cunug yar garan iyo surwaal hoose gashanaya oo kubad aadaya. Marqibkana masjidka oo salaadii lagu jiro ayuu dhinac ka soo dhaafaya isagoo boor iyo rifrif weyn. Xilligii uu ugu jeclaa ayaa la soo gaadhay. Xilligan ayuu 24 saac ugu jecel yahay. Waa ka surwaal hodhoqsan iyo shaar ka sii hodhoqsan intuu isku taagay, timihii raamaha ahaa halkuu ka shanlayn lahaa sii duuduubay, salida ku dhawaaqay. Isagoo sidaa u hodhoqsan ayuu guriga ka soo baxay. Hooyadii oo ku leh warkaale kiniinidoon. Islaantan muranka badan maxay markaan labisto ii eegataa marka kalaba wax noo dirsatay ayuu iskula xashaashaqay. Hadda waa hooyadii macaan qofka uu sida uurka uga xamanayo. Hooyo, inama aanu saaxiibanahay ayaa ii taagan, ayuu hooyadii ku yidhi oo ka dhaqaaqay. Meherad ayuu soo galay oo hooyadii oo hadda diidayay wacay. Hooyo, $1 ii soo dir, waxaan ku shaahiyay, ayuu ka codsaday. Iyaduna Ilaahay ha ku soo hanuuniyo ayuu ugu ducaysay oo u dirtay. Caawo idil ayuu halkii fadhiyay oo xan iyo faan isku daray. Mar kalena ciyaar moolka laga ciyaaro ayuu isku maaweelinayay. Lasiiqaadku waxaan inta ahaynba ma yaqaan. Mid ayuu ilaaway. Tii yarayd ee shay luuqa kaga hortimi ee uu lamarka ka qoray muu waco tala ku dhalatay wuu wacay balse way ka qaban weyday. Uu gurigooda ugu tago ilaa uu yaqaanay. Waa ka aaday xaggeeda u sii luudaya isagoo luuq foolxun ku qaadaya hees ka sii foolxun. Macawista ay ka dhacday ma fahmin. Waa runtiisa waxba kama fahmin. Balse dhalinyarada ayaa aad u dhigaysata. Isaguna wuxuu isleeyahay qayrka ka hadh waa habaar. Tii yarayd oo kaabada ma way la fadhida ayuu arkay. Waa abshir. Wuu isku sii daayay. Ii waran qurxey ayuu hadal uga bilaabay. Maxaan ku warramaa anigu ma wariyanahay ayuu ku afjigtay. Lasiiqaada yari maxay isla yeelaysaa ileen way rabtaay ayuu iskula hadlay. Wuxuu damcay inuu dhinaceeda fadhiisto. Markii uu barida dhulka dhigmaagayna mid walaalkeed ah oo reer baadiya ayaa dhabi la moodo in dhirta cadaabta ka baxda laga soo gooyay dhabarka kaga dilaaciyay. Istaag garac u dhalay. Waa ka cawaadka iyo cararka isku daray ee gurigoodii isku sii daayay. Waxa weyni ma soo gaadhin oo intuu iska seexdo ayuu aroortiina halkiisii ka bilaabayaa. Intuu quraacdo ayuu iskuulkii uu waqtiga ku lumin jiray tegaya. Qofkaas waalidkii rajo ka qaba iyo inuu meel uga soo baxo. Bal ka waran ayna dhan oo noloshooduba intaa ku gaafuriigayso. Ilaahayow imaanka ha naga qaadi ayay hooyadii ku ducaysataa markay xasuusato in wiilkeeda Ilaahay imaankii ka qaaday. Ilaahayow waa runteeda imaanka ha naga qaadin. Ismaalure.